madaxweyne nimankeega ka banaanka maalkoyti waleertay doqno ku faayo waqti shay dhamaaday taabay ka bilaabay malakoyn waatay dhamaatin jalku way balay koy dheeray waa ku daay hadubkii warane dhan baajee dareere ono way falaane koofur galbeed malakoya falaane jirte furaw shicib ka dareero anta may baa ku bujeediyay dhalinyarada koofur galbeed hataa boohay mustaqbalkii wabisan ambeersan isin wasi qodawaya ono dad hormarayana dhalinyarada koofur galbeed baa jeediya meel kasta sadiidan gobliyo guduga fikirkii haddii bida korta doorashada lama baroodo wada jaraama ku dhama intee kaasa ku talaabashaysidu korta laakiin khayrka tijarood allah nimbi una abartan sana dadku ku baaya nagnay dad maalana diyaarin nagti diyaar labaatiya barsaa diyaar wadu may ku kumaa wali banaane ka ooyraabtanti halle basur dhalinyarada i haweenka garabka hayan beritan afartan koona meeli badan ku qaadaw jidka qaadaw shabeelladaas meelo ku seedaw baraha luliijeeya badan una hasininiya bakori elbert may falaane langdi jeeya badan lulay ka seedani jiridana nin furo badan dadkaan istahgalo badan lanki wallin sheego badan taqaar wala ka sheegno waysana may si odsadaane musharax geeka amir sharax madaxweynenimada هذا ويانا أنا محمد سونسور كأما فرنا كده وكم نروح لبناني أنا لما نمين يانو إلهي ولا نبيه أنت حتى كوفر كبر أبراسون حني داين كأما فرنا كده ويا مشارحين ويلا رأي أدوك لما ولا هذا كده بدنا لاري مرتا صورتين ملكين كجن كنتم فرسون سديدو قبل هذا صورة ملكين جن لما هذا سباسي هم عبكين بقويا مشارحين تنعني داين فرمين تسكيجي ما يبغى مشارحين تكوفر كبر أبنا ما أقول ده وهاي وكمان أنا هذا واحد أنا قويا لكن يرى يسكتان هذا أنا ترى تدبري على قبضة أبرسني أنا ما يتين على قاعد أمر ونسرنا أبرسن كلا تثبت باري هم تثبت باري ويتمون من هذا ملحونا مشارح ما كيف هذا قبل كان هذا شرحين مقول بيلو وزول أفكار مقيا بنيدي ولا قرب أول أسنسي أنا لكن ثم كيف كل لما أتيم ملحونا أنا كون فكر بغرت برود إذن ثم كيه هذا شيء هاي لكن إلهي على فوق هذا قام فرماسين كتوايان إذن ما يكتنا حسنا أنت فرطوس كهاتم دورشنا من بتكبير لكن يروح كوكيب قالوا حوالي كوكيب قالوا ونتبين ده واتم فرام ما يرانا بورو كي كجرنا ما يرانا هوب إشرافات لكن ده تلقى ورس قال ما يسقلوا يسقلوا ما يني كتب كويسي إيش ما أقول كده مين كلامه أبي أو بني سدينهم قبل ويبغى أنك أصدقنا برانتاس كنا سدي صدي أنا سدي أني مين كلامنا لما رسالة تسوالهم ويطلع رسالة يكتنا لنا ما يصير أبصر وقت كدور يشيد سحرال أكيدو أنا حين دبانة إلهي أنا أرجع لما بينهيلي أنا لكن وقت تسمى بيا في ريان كاساس كاران ما يصير كتواعي كأم فرما يصير كتواعي كل يوم مسكولك يبقى تقول نقول له مشارح مدحوين هذا واو كأم فرما كتواعي welcome السلام عليكم وعليكم السلام شرح هذا محمد نور هذا سمسوكم وعدر وحال لما السلام عليكم لما أنا البيل ماموس كله وزير له ذلك دقك أقوياك العلماء التويتا القراء بشرة أمانتهم أنا أدرى وحان سلام يا مشرح مدحوينا هذا محمد نور يتاجر يا شيسان يطلع سافضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كتب قال هل شرفوا البيتين
inaan ka soo qayb galo xafladda waxaan rabaa inaan ka hadlo 3 kelmadood mid waxay ku aadan tahay musharaxa madaxweynaha midna waxay ku aadan tahay dadweynaha midna waxay ku aadan tahay xildhibaanada musharaxa madaxweynaha ama qof kasta oo bini aadan markuu ilaahay hooyada uurkeedu ku abuurayay isagoo xanuuf ah iyo 40 casho lagu abuuray haddana waxaa loo bedelay 40 casho injir haddana waxaa loo bedelay 40 casho cad hiliba waa 120 casho 120 casho waa 4 bilood habeenkay 4 bilood u dhammaato ilaahay wuxuu soo dirayaa malag wuxuu leeyahay ruuxa ku afuuf cadkaas meesha cadka markii ruuxa lagu afuufo habeenkaas hooyada waxay ogaanaysaa in lagu dhaqaaqay oo unuga meesha ku jira 4 bilood wey malagii waxaa la farayaa 4 shay inuu qoro irsaaqdiisa wuxuu cuni lahaa wuxuu xiran lahaa wuxuu guursan lahaa wuxuu labisan lahaa wax walbaa la qoraya waxaa la qorayaa cimrigiisa inta daadiisa ay gaari doonto waxaa la qorayaa shaqadiisaa la qoraya waxa uu qaban doono marka ugu dambaysana waxaa la qoraya inuu yahay mid habaar qaba ah oo naar galaya ama mid saciid ah oo janno galaya marka macalin shaahidkayga waxaa waye waxaan oga gol leeyahay risaaqada ilaahay uu qoro waagaasaa loo qoray qofka marka aadan maxamed nuur aadan sarasoora waxaan ku leeyahay haddii uu kuu qorinaya kursigan inaad ku fadhiisato waad helaysaa taas halkaasaa looga baxay waxaan rabnaa maadaama uu musharaxnimadiisa maanta uu ku dhawaaqay hal fariin inuu naga gudbiyo oo ah in doorashada 17 November 2018 ay ku dhacdo si nabadgelyo ah inta waxaan kaloo u sheegaynaa inay doorashadan u dhacdo si xor oo xalaal ah inuu arrintaas ka shaqeeyo si xor oo xalaal ah inuu ka shaqeeyo asagii musharaxiinta kaloo soo socda taas xagga iga dhig waa tii musharaxa madaxweynaha waxaan rabaa dadweynaha inaan la hadlo dadweyneow dowladnimo haddaa maqashaa waa 3 shay wey in dhul la leeyahay in dad la leeyahay in xukun uu jiro intiiba waa haysana haddii dadweyne aysan jirin dowlad magaceeda ma jiro maadaama dadweynihii tiin annaga magaceena saa u taqaanaa waxaana la dhahaa wakiilada koonfur galbeed wakiil yaa ka nahay dadweynaha ka nahay dadkaas yaana xukumo ay wakiil